السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الملك joogtaan ku soo wadaajinal kaga bishay Maxamed Barkar iyo barnaamijka xogaha xirfadda isboortiga waxaan idinku soo gudbin doonaa 5 ciyaartoy oo ka soo jeeda qaaradda Afrika kuwaas oo sumcad lacag hanti iyo weliba maqaam sare ka gaaray kubadda cagta ee qaaradda Yurub kuwaas oo wata 5 gaari ee ugu qaalisan kuwaas oo jooga lacag qaali ah waxaa ka soo muuqda ciyaartoy leh magacyo saameyn leh Afrika mar walba waxay ahayd meel sare oo loogu talagalay bixinta kubadda cagta tayada adduunka oo idil qaar badan oo ka mid ah kubadda cagta Afrika ayaa ka qayb qaata horyaalo badan oo hadan ah oo ku yaala Yurub waxaana ay kasbadeen natiijo ka dhalatay waxtarkooda qaar ka mid ah ciyaartooyda ayaa ah kuwa ugu mushaarka badan adduunka sida darteed xagee bay kuwan kubadda cagta ee Afrika ah ee qaniga ah ku qaataan lacagtooda qaar ka mid ah waxay iibsadeen guryo jasiirado dabiici ku yaala qaar kalena waxa ay jecel yihiin in ay lacagahooda ku iibsadaan gawaarida qaaliga ah waxaan idin soo gudbin doonaa 5 ciyaartoy ee wata gaadiidka ugu qaalisan ee dunida iyo magacyadooda iyo lacagihii ay ku iibsadeen iyo sida liiska loogu kala horeeyo booska koobaad waxaa ku jira halyeeyga weyn ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea Didier Drogba waxa uu wataa Mercedes SL 65 AMG qiimihiisuna waa 226,000 oo dollar waa kabtankii hore ee xulka qaranka ee Ivory Coast iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea mashiinkii goolalineed ee kooxdan soo maray waana mid ka mid ah halyeeyada Stamford Bridge sida aadka looga aaminsan yahay kaasoo kubadda cagta ka macaashay magac iyo sidoo kale sumcadna ka yeeshay kana soo jeeda qaaradda Afrika labaad waxaa soo galay 5 ciyaartoy ee qaaradda Afrika ka soo jeeda ee wata gaadiidka ugu qaalisan ee dunida Samuel Eto'o Police waxa uu wataa gaariga lagu magacaabo Bugatti Veyron qiimihiisuna waa 2,250,000 oo dollar waana xidigii hore xulka qaranka ee Cameroon iyo kooxda kubadda cagta ee Barcelona waana mid ka mid ah magacyada saameynta leh saddexaad waxaa ku jira El Hadji Diouf waxa uu wataa gaariga lagu magacaabo Mercedes SLR McLaren kaas oo qiimihiisu yahay 600,000 El Hadji Dioufna waa xidigii lagu naanaysay The Bad Boy of Senegal marna waxa uu ahaa mid ka soo muuqday kooxda Liverpool sidoo kalena 2 jeer oo African Footballer of the Year waana mid ka mid ah magacyada saameynta leh afraad liiskan waxaa ka soo galay 5 ciyaartoy ka soo jeeda qaaradda Afrika ee wata gaadiidka ugu qaalisan ee dunida Sule Muntari waxa uu wataa Lamborghini Gallardo kaasoo qiimihiisu yahay 200,000 waana xidigii hore Inter Milan iyo AC Milan kuba sameeyay cajiibka ah sidoo kalena lacago badan ayaa la wariyaa xidigaas inuu ka soo tabcaday horyaalka lacagtu aadka ciyaartooyda markii daadooda ay badato ay u raadsadaan ee Saudi League waana xidigii hore xulka qaranka ee Ghana booska ugu dambeeyay liiskan 5 ciyaartoy ee ka soo jeeda qaaradda Afrika ee wata gaadiidka ugu qaalisan ee dunida waa xidiga lagu magacaabo John Obi Mikel shanaad waxaa ku jira John Obi Mikel Bentley Continental GT wataa qiimihiisuna waa 200,000 waa superstar weyn kaasoo wacdara ka soo dhigay Chelsea xidigii hore Nigeria qadka dhexe ku caan baxay waxa uu mid xirfad leh kubaddana aad ugu dagaalami jiray waxa uu mid soo joogta ah Chelsea u matali jiray waayihiisa superstar weyn ayuu kooxda ka ahaa waana xidig xirfadiisa aad Premier League ugu soo muujiyay waxaana uu ku soo baxay liiskani kuwaasina waa 5 ciyaartoy oo ka soo jeeda qaaradda Madow ee Afrika oo wata gaadiidka ugu qaalisan ee dunida sidoo kalena maal magac sharaf iyo sidoo kale meeqaam saraba ka sameeyay xirfadda kubadda cagta iyagoo ka soo jeeda qaaradda Afrika kubadda cagta ka soo saameynteedana waxaa ka mid ah in qofka bini'aadamka xitaa ay bedesho maadaama laga dhaxlo waxa ugu weyn ee bini'aadamka bedela waana lacagta mararka qaarkood xitaa waxaa la yiraahdaa lacagta waa ay hadashaa waxaanan ahayn ayay sidoo kale ka dhigtaa tan iyo barnaamijka ugu kulmi doona mid lamid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh